muuqaal ahaan gurigan waxa uu kula muuqdaa mid iska caadi ah, laakiin ma ahan sidaas. gurigan waxa uu ku yaalaa dusha sare mid ka mid ah buuraha ugu dhaadheer gobolka Washington ee waddanka Mareykanka, waxaana loogu talagalay inay seexdaan dadka dalxiisayaasha ah. adiga oo gurigan iska dhex jiifa ayaad dusha sare ka daawan kartaa guud ahaan magaalada Washington. laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay sidee bay dadka ku gaari karaan gurigan si ay u seexdaan maadaama uusan lahayn wax jidad ah oo gurigaasi taga. laakiin sidaas ka muuqata gurigan waxaa loogu talagalay oo kaliya inay seexdaan dadka yaqaana sida buuraha loo koro, kuwaas oo awood u leh inay koraan buurta dusheeda isla markaana seexdaan gurigaasi. waxaana gurigaasi lagu seexdaa halkii habeen $270. qiimo ahaanna waxa uu joogaa in ka badan $120,000 oo dollarka Mareykanka ah. waana mid ka mid ah guryaha ugu yaabka badan ee ku yaala gobolka Washington ee waddanka Mareykanka. gurigan waxa uu ka samaysan yahay muraayado badan oo la isdul saaray, laakiin arrinka la yaab kale ayaa waxay tahay mar walba oo aad gurigan ka sii fogaato in ka badan 500 oo mitir waa uu qarsoomayaa gabi ahaanba. taasina waxay ka dambeysay kadib markii injineerada gurigan dhisay ay u isticmaaleen farsamo aad u sarreysa, isla markaana adeegsadeen mid ka mid ah muraayadaha ugu qaalisan caalamka, kuwaas oo guriga u ekaysiinaya buuraha guriga u dhow, iyadoo guriga loo malaynayo inuu yahay mid ka mid ah buurahaasi. laakiin marka aad gurigan gudaha u gasho waxa uu leeyahay wax walba oo guryaha caadiga ay leeyihiin oo kale, sida qolalka jiifka, kuwa fadhiga, suuliga, kushiinka wax lagu karsado iyo sidoo kale barkadaha lagu dabaasho. qiimo ahaan gurigan ayaa waxaa lagu qiyaasay in ka badan $10 milyan oo dollarka Mareykanka ah. gurigan waxa uu ka samaysan yahay alwaaxyo badan oo la isu geeyey, muuqaal ahaanna waxa uu eeg yahay xayawaanka eeyga. shirkadda gurigan dhistay oo lagu magacaabo Airbnb ayaa waxay ugu tala gashay in gurigan ay seexdaan dadka dalxiisayaasha ah amaba dadka safarka ah ee maraya wadada highway-ga ah ee gurigan u dhow. gurigan ayaa habeenkii waxaa lagu seexdaa in ka badan $250, iyadoo halkii habeenna ay seexan karaan 2 ilaa 3 qof. waxa uuna gurigan leeyahay kushiin, 2 qol iyo suuli. waana mid ka mid ah guryaha ugu yaabka badan ee ku yaala gobolka Idaho ee waddanka Mareykanka. fikradda dhismaha gurigan ayaa waxaa iska lahaa sida la sheegay mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda, kaas oo ku fekeray inuu dhiso guri u eg eey uu isaga lahaa. guriga gadisan ama rogan. inkastoo muddooyinkii dambe ay soo bateen guryo badan oo sidan oo kale loo dhisayo, haddana gurigan waxa uu kuwaasi uga duwan yahay. wax walba oo gudihiisa ku jira waa kuwa gadisan ama rogan. tusaale ahaan miisaska, sariiraha iyo kuraasta gurigan gudihiisa ku jirta waa kuwa gadisan. sida muuqatana gurigan looguma talagelin in lagu noolaado oo kaliya waxaa loogu talagalay in dalxiisayaasha gurigan ay u soo daawasho tagaan. waxaana la sheegaa in celcelis ahaan sanadkii ay soo booqdaan in ka badan 14,000 oo dalxiise. guriga buurta ku dhegan. muuqaal ahaan gurigan waxa uu eeg yahay mid iska caadi ah, laakiin sida muuqata gurigan waxa uu ku yaalaa buurta dusheeda. waxa uuna leeyahay nasiib wanaag wadda loo maro, balse gurigan markii aad dhex seexato waxaad dareemaysaa oo kaliya cabsi, sababtoo ah waxa uu ku yaalaa meel halis ah. waxaana dhici karta adiga oo hurdaya inuu gurigan kula dhaco isla markaana uu tago gunta hoose ee buurta, maadaama uu ku yaalo meel aad u sarreysa oo buurta dusheeda ah, isla markaana uu kaliya ku xiran yahay biro iyo sidoo kale dhagxaanta buurta. waxaana dhici karta mar walba in gurigaasi uu halkaasi ka soo dego. dadka halkaasi booqda ayaa gurigan waxay ku tilmaameen mid ka mid ah kuwa ugu halista badan ee noloshooda soo martay. waxaana habeenkii lagu seexdaa gurigaasi $170, iyadoo loo ogol yahay inuu seexdo oo kaliya hal qof, maadaama gurigan uusan qaadi karin wax ka badan culayska hal qof, kaasoo xitaa laga yaabo inuu ka soo dhaco buurta isaga oo la socda guriga isla markaana ku dhaco halka ugu hooseysa. haddii aad ka mid tahay dadka jecel inay u dalxiisaan xeebaha amaba ay quusaan biyaha hoostooda, kani waa mid ka mid ah hoteelada kugu habboon. waxa uuna ku yaalaa jasiiradda Maldives. hoteelkan waxa uu leeyahay wax walba oo looga baahan yahay hotel, isagoo uu ku dhex yaala gunta hoose ee biyaha. waxa uu leeyahay qolalka hurdada, kuwa fadhiga, suuliyaasha iyo sidoo kale
maqaayad lagu cunteeyo taas oo iyadana ku dhex taalla badda hoosteeda. adiga oo qolkaaga fadhiya ayaad arki kartaa libaax badeed iyo sidoo kale xayawaanada kale ee badda ku jira. waxaana laga yaabaa inaad mar kaliya soo baraarugto adiga oo biyaha badda dhexda ka fadhiya, waayo waxaan waa muraayad layskuma haleyn karo. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar kuna soo biir janalkeena adiga oo subscribe taabanaya. tan iyo intaynu dib dambe u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.